بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، walaalayaal adduunka meel aad ka joogtaanba waxaan hawada idiin soo marinayaa salaan aad iyo aad qaali u ah, gaar ahaan tv-gan qaranka qeybtiisa waddanka Canada magaalada Toronto ayaan si gooni ah aan hawada salaan ugu marinayaa oo igu marti qaaday anigoo marti ah. ama mawduuca aan doonaya inaan idinla wadaago waa mawduucaadii aad u macaan, waa mawduucaadii aad u qiimo badan, waa mawduuc qalbigaygu aad ugu faraxsan yahay markii aan ka hadlayo. maxaa yeelay waa mawduuc ummadayda khuseeya, ummadayda Soomaaliyeed ayuu khuseeyaa. waa mawduuc khuseeya ragga waaweyn iyo dumarka iyo siyaasiyiinta iyo maalqabeennada iyo culummada iyo ducaadda iyo qofka shaqaalaha ah, midka ugu sarreeya iyo midka ugu hooseeya. mawduuc khuseeya ayaan doonayaa inaan maanta idiin soo bandhigo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. mawduuca talow magicii maxay kula tahay mawduuca maanta aan ka hadli doono? waa mawduuc qalbigaaga xidhiidh la leh, oo indhahaaga xidhiidh la leh, oo dhagahaaga xidhiidh la leh, oo jirkaaga xidhiidh la leh, oo cumrigaaga xidhiidh la leh, oo liibaantaada xidhiidh la leh, sacaadadaada xidhiidh la leh, farxaddaada xidhiidh la leh. mawduuca waxaa la yidhahdaa sideen oo u helaa lamaano wanaagsan, sideen u noqon karaa lamaano ku nool raaxo adduunyada, aakharana biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ee jannada isku gala. mawduuca waxaan doonayaa inaan qaab ooga hadlo dhowr qodobo inaan ooga hadlo. aan doonaya inaan soo khulaaseeyo. isku day marka dhegaysto inaad aad iila socoto, inay ku anfacdo ayaan rajaynaya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. awalan, qodobka koobaad, lamaanuhu waxaa la doonayaa inay si wanaagsan isu doortaan. qofka reer baadiyihii goorta uu doonayo inuu xoolo u sahmiyo ama reerka u sahmiyo, yacni wuxuu u raadiyaa meel degaan leh oo aan qaniin lahayn, oo aan abaar ahayn, oo aan oomano ahayn. wuxuu degaan oga raadiyaa reerkiisa, waayo waa jecel yahay, xoolihiisa, waayo waa jecel yahay. meel raaxo badan oo biyo leh ayuu u raadiyaa. maxaad u malaynaysaa marka? lamaanuhu waa mustaqbalkii, waa cumrigooda inta ka hadhay siday u wada noolaan lahaayeen. idan sahan baan u baahannahay qodobka koowaad. saasuu nabigeennuna baray sala allahu calayhi wasalama. haweenka 4 nooc baa loo guursadaa, 4 qaab. qurux rag baa ku doorta, war quruxdu way dhammaani. xoolo rag baa ku doorta, war xooluhu way dhammaani. qoys wanaagsan bay ka dhalatay, in la colloobaaba laga yaabaa. laakiin midda diinta la dooro. qodob gooni ana waan oga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo. gabadhana waxaan leenahay ragga waxaa lagu doortaa diin iyo akhlaaq. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh. hadday ragow idin yimaadaan dad akhlaaq iyo diin leh, gabdhihiinna ha u diidina. waa reer hebel ha ugu diidina, waxba ma haysto ha ugu diidina. diinta iyo akhlaaqdu ayadaa xoolo ah, ayadaa farwo ah, ayadaa raaxo ah. qodob baan kaga hadli doonaa mar kale insha allah haddii alla yidhaahdo. qodobka horta waa qodobka koobaad oo raaxada guriga ka qayb qaadanaya, oo anna waan sahmiyey, adiguna waa sahmisay. idan dhul dooxa ah oo degaan leh, oo aan qaniin lahayn, oo aan colaad lahayn, oo biyo leh, oo barwaaqo leh, oo roobka uu korka samada kaga keenay, dhulkina uu biyihii aqbalay, kadibna doog iyo daaq, dad iyo duunyo ay ku doogsadaan soo saaray ayaan u guuraynaa aniga adiga. haddaba waan israacaynaa ogow, halkaasaan geedi u nahay ogow, waayo waa soo sahmisay, anigana waan soo sahmiyey. qodobka labaad oo muhiimka ah
waa annadar waa in labada qof waa inuu midba midka kale iska fiiriyo maxaa yeelay nabigeenna wuxuuna barayaa sala allahu calayhi wa aalihi wasalama aragtidaasi inay noqon karto aragtida noloshu ay ku daa'imi karto si uusan qofka kale markii guriga loogu keeno uusan oola yaabin oo uusan u dhihin nacam arrinka waa muhiim ogaada in lays eego wejiga qofka kale wejigiisa eego oo horta uu ku qanco halkaa waxaa iigu jira baab la yidhahdo baabu shukaansi iyo baab la yidhahdo baabu xodxodosho si khaldan baa hadda wax loo shukaansadaa si khaldan baa wax loo xodxotaa been baa inta badan laysu sheegaa walidaalika ayaa hadhowta waxaa dhici doonta qodob hadda ka hor aan ka hadloo la yidhaahdo saa kuuma haysanin saa kuuma malaynaynin wiilkii wuxuu leeyahay markuu gabadha shukaansanayo annagu geesiyiin baan nahay maalqabeenna ayaanu nahay boqorriyo ugaasyaan ka soo jeednaa dadka dhan baabana yaqaana mid dhow iyo mid dheer gacantayadu way iska furantao dumarka waxbaba ooma xisaabno waan ku kallarayni oo waan ku casayni oo faa waan ku siini oo bunni baan kaa dhigi qof saa u taagan oo cajaa'ib badan baan kaa dhigi gabadhuna waxay leedahay aniga maxaad iga taqaanaa waxaanu dad hooyo marwa'a baa i dhashay aabba la yaqaana ayaa i dhalay gabadh waxaan ahay adduunka ma u malaynayo gabadh iga gaarisan inay adduunka jiri doonto cuntadayda aad cunto cuntada aad cuni doonto waxaad ka shikin doontaa talow ma sokor baa lagu daray ma sonkor baa lagu daray ma malab baa lagu daray ayaad ka shikin doontaa waaba nala yaqaanaaba annaga hase yeeshee markii laysu imaado oo gurigii layskugu imaado si kale ayaa la noqdaa idan shukaansiga yaan been laga sheegin ee run iyo xaqiiqaha laga sheego qodobka kale oo raaxada lamaanaha aan u bixinay waa alsamcu waataaca waa labada qof inay ismaqlaan alrijaalu qawaamuun cala annisaa ninku asagaa oday ah asagaa hoggaanka haya gaadhiga hal darawal baa wada diyaaradda maxaa liha markabka waxaad ogaataan ilaahayga abuuray koonkan gabarh yahay ku abuuray ninkana abuuray dabeicaddiinana kala yaqaana asagaa ninka hoggaanka u dhiibay maxaa hoggaanka loogu dhiibay reerku inay raaxadiisu ay sii daa'imto waa ilaa haweenku way caatifo badan yihiin laba mid weeye in laguu dhiibi lahaa iyo in asaga loo dhiibo iyo in laydiin wada dhiibo suurtagal ma in laydiin wada dhiibo haddii qof loo dhiibi lahaa rabbi baa u doortay xakiim weeye asagana garanaya meesha ku habboon idan alsamcu waataaca gabadhu marka waa inay zawjkeeda ateecdo ninka laftiisu ragga qaar baa khalad ka fahma yacni ma aha macnaheedu haweenka inaan la maqal haweenka qodob baan kaga hadli doonaa sida loo wada tashanayo ee guriga looga wada hadlayo go'aanka sida loo qaadanayo gadaal baan kaga hadli doonaa laakiin ma doonaysaan qoys wanaagsan inaad noqotaan usra saciida inaad noqotaan lamaano wanaagsan inaad noqotaan maasha allah ma doonaysaan waa inaad is ateecdaan waa inaad ismaqashaan waa inaad is ixtiraamtaan qodob baan kaga hadli doonaa isagana ixtiraamka idan alsamcu waataaca khaasatan haweenaydu inay ninkeeda u hoggaansanto waxaan macsi ahayn saasuuna nebi moxamedna baray sal slam laba nin isma qabi karaan laba nin isma qabi karaan waxa isqabi karaa waa lab iyo dhadig saasuuna ilaahay noogu talagalay tabaaraka wa tacaala gabadhu marka waa inay dowrkaa garato alsamcu waataaca qodobka shanaad oo raaxada guurka lamaanaha lagu gaadho waa alibtisaamatu waalkalimatu tayiba maxaa kuu diiday muusood guryaheenna waxa ka maqan wey in laysu dhool la caddeeyo horta ma og tahay inay sadaqo tahay ibtisaamadu waa sadaqa wallahi ajir baa lagaaga qoraya ilaahay agtiisa lagaaga qoraya ciddaad u qoslaysa waayo waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tidhi adiga qurux waa adiga sharaf waa adiga indhahayga midda u ron waa adiga hadalkayga midda u macaan waa adiga naftayda middaan ku aaminay waa adiga jirkayga middaan ku aaminay waa adiga reerkayga middaan oga soo tegay waa adiga yaa waa qofkaad u qoslayso waa ninka intaad ragoo dhan soo dhex martay aad tidhi adiga raganimo adigay kugu dhan tahay ninkaa qurux badan oo kaa halyeysan oo kaa sharaf badan oo kaa raganimo badan
dumar oo dhan baan kaaga soo dhexbaxay reerkanagii baan kaaga soo tegey hooye macaan baan kaaga soo tegey idan labadiinna xaq isu leh inaad isu muusotaan ood isu qosashaan weliba muusood run ahoo dhab ah sidoo kale muusoodka waxaa dheer alkelimatu alxulwa kelimada macaan xabiibtii in badan oo ragga iyo dumarkeena ka mida isma dhahaan raggu waxay raba inay dhahaan warawa tii carruurta dhashay war tii awey maxaa la yidhahdaa awey tii sidan ahayd awey islaantii reerkan ahayd awey yaa akhi maxaa kuu diiday inaad dhahdo awey saaxiibtay awey sidiiqdaydii awey xabiibtaydii yaa caa'ish buu nabigu ku dhihi jira caaisha magac oola bax haweenaydaada ma garan sir baan rabaa inaan kuu sheega maanta waayo mafaatiix badan baan bixinaynaa maanta ninka ka faa'idaysta ballan waxaad arki doontaa inaad noolal cajaa'iba ku noolaato laakiin hal iga ballan qaad ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim inaad isbeddesho ayaa lagaa doonaya adug marka noloshaada bedel oo ibtisaamada la imow kelimada macaanna la imow kelimada macaan magac oola bax xaaskaaga ayna cid kale kuu aqoonin yaa magac inaad oola baxdo marka ay magacaa maqasho ay farxayso gabadhya ninkaaga magac oola bax oo u bixi markuu maqlo uu farxayo carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isjeceshihiin carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isku soo dhowaateen carruurtu markay maqlaan ay leeyihiin allah yaa aniga tolow aabbahay oo kale ma heli doonaa ay gabadhi leedahay ninka i guursan doona tolow aabbahay oo kale ma noqon doonaa ha wiilkii uu leeyahay allah tolow aniga hooyaday oo kale gabadh u dhiganta ma heli doonaa fartu dhexda uu ka qaniinaya soo cajaa'ib ma aha waa waxyaa badan weye idan kelimada macaan iyo hadalka macaan iyo ibtisaamka iyo dhoolla caddayntu waana sadaqa quluubtiinana way isku soo dhowaanaysaa qodobka lixaad ashukr horta shukri ilaahay baa leh oo mahad ilaahay baa leh laakiin nabigeenna dhegeyso sala allahu alay wasalama man laa yashkur innaas laa yashkur illaah qofka aan bini aadamka wanaagga u sameeyey aan u mahad celinin rabbiga abuurtayna uma mahad celiyo allahu akbar u fiirso seena oogu mahad celinaynin shukran waad mahadsan tahay way maanta guryaheennu yacni guryaheennu waxyaabahay la dumeen waxaa ka mid a yacni in kelimadaa la waayo waad mahadsan tahay yacni guriga u fiir tusaalaan ku siinayaa ninkan tusaale gabadhaan rabaa ninka inaan tusaale gabadha u siiyo mathalan ninkii baa maanta baxay aan ku hormariyo gabadha kadibna gabadhii gurigay kuu hagaajisay allahu akbar guri nadiifa bay kuu diyaarisay sariir cajaa'ib badan bay kuu diyaarisay lidaraja hadduu gurigaa daksi soo galo 6 biloodoo xadhiga bay u jaraysaa daksiga guriga carafta idgoonka ayadaa ka daran quruxdan kaga hadli doonaaye cuntay jikaday kuu gashay qiiq baa ku baxay cuntadii bay isu dheelitiraysay basasha bahaaraadka cusbada wixii oo dhan saliidda yaynan caloosh ku xanuunin yuusan ku jiranin daawo ku dar caafimaad waxaasoo dhan bay isu dheelitiraysay qudaartii adduunkii kalluunkii hilibkii maxaa la mooskii adduun oo dhan bay isu dheela tirtay mar alle markay soo gasho aad soo gasho adigu oo alaabtaa laguu dhigo ood aragto gurigii oo quruxdiisa aad la yaabi gabadhi ood moodo midhaha hohobka la yidhaahdo guduudka oo adigay saa kugu isku diyaarisay ragga qaar baan ogeyn moogtahay markaasaa cuntada laguu soo dhigay shukran ma dhihi leedahay waxaan maanaad ii diyaarisay oo maanaa jika ii gashay ya oo ma aniga dartay intaas oo saacadoo musqusha ugu jirtay shukran kelimada waa cajiib ninka marwada kaa dhigay ee guriga ku fadhiisiiyey ya boqoradda kaa dhigay melikadda kaa dhigay ya xoolihiisoo dhan ku siiyey sharaftaa kuu yeelay gabdhaha kale kaa sara mariyey carruurtaa wan wanaagsan ilaahay kaa siiyey eed jeceshahay shukran intaa ma dhihi weyday idan reerka wanaagsan sacaadadu waxay ku dhammaystirmayso waa kelimatu shukran waad mahadsan tahay zawji alghaali wa zawjati alxabiiba waad mahadsan tahay
qodobka kale oo toddobaad asabru doonaysaa qoys wanaagsan ma doonaysa inaad raaxo ku noolaato asabru allahu akbar horta in lasu sabro oo ma waxaad guursatay malaa'ig soo maada guursanin bashar soo maada guursanin insaan soo ma ogid nabigeenu inuu yidhi sal ly slama kullu bnu aadama khataa haye soo ibni aadam oo dhan ma gafo nacam wuu gafaa weliba waxaan kuu sheegi waxaa idinka dhexeeya wax walba idinka dhexeeya marka hadduu wax walba idinka dhexeeyo de waxbaa khaldamaya caqligii baa idinka dhexeeya maskaxdii baa idinka dhexaysa tabcan xoolihii baa idinka dhexeeya gogoshii baa idinka dhexaysa musqushii baa idinka dhexaysa qaraabadii baa idinka dhexaysa carruurtii baa idinka dhexaysa sariirtii baa idinka dhexaysa shahwadii baa idinka dhexaysa candhuuftaa idinka dhexaysa jirhkiinna iyo dhididkiinna idinka dhexeeya ma waxaad leedahay mustaqbalkii baa idinka dhexeeye dadka intaa wax isku darsaday isma qaniini karaan maya wa ismaan dhaafi karaan oo wa isqaniini karaan oo guurku ma aha roog guduudan oo laysu goglo mana aha ubax iyo wuruud ma aha oo keli aha yacni guurku wuxuu leeyahay xanuuno iyo abaaro iyo cudurro iyo faqri iyo colaad iyo dhibaato iyo ismaandhaaf iyo is-afgarad waa iyo ayuu leh idan ma doonaysaan qoys wanaagsan usra saciida raaxa leh lamaano raaxa leh ma doonaysaan isu sabra sabarkuna ilaahay wuxuu gaadhsiiyey darajo weyn inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab xisaab la'aan baaba la siiyaa maalinta qiyaamo hal tusaale oo cajaa'iba labadiina qabsada gabadh la yidhaah laba tusaalo zawjo iyo zawj idinka siiyo ma maqasheen saxaabi abu talxa la yidhahdo iyo gabadha la yidhaahdo umu sulaym radia allahu tacaala canhuma wiilkoodii oo mayd ah bay aroos ahaayeen ilaa daraja sabarka intaa dhan ay umu sulaym tidhi caryaa ninkayga u sheega inuu wiilkaygii geeriyooday allahu akbar waa gabdheheenna salaan khaali a baan u dirayaa gabdhaha soomaaliyeed meel walbay adduunka ka joogaan maxaa yeelay gabdhaha soomaaliyeed qiimo iyo sharaf bay leeyihiin xaaladda ummadda muslimiinta soomaaliyeed maraysana qayb weyn bay ka qaateen jazaahuna allahu khayran waxaanse doonaynaa faraskana usha ugu sii dhufanaynaa inay sii dheereeyaan sow ma aha haa inaad sii dheeraysaan baa la doonayaa umu sulaym wiilkeedii oo meyda bay aroos gashay nacam aroos bay gashay sabarku meeshu ka gaadhay waatuba gabadha awooddaa way isqurxisay qurux meesha ugu dambayso jikaday gashay cunto nin aroosa loo sameeyey samaysay wiilkeediina waa meyd abu talxa yimid albaabkuu soo furay assalaamu calaykum ka warran wiilkii hadda unbuu ugu dhadhaqaaq yar yahay beenta way iska ilaalinaysaa abu talxa inuu wax fahmana ma doonayso waa uu farxay way soo dhoweysay cuntadii cashadii bay siisay allahu akbar cuntadii cashadii ayay siisay kadibna maxaa dhacay xaaladda iyo arrinta dhex marta nin iyo xaaskii baa dhex martay ina waa faraxsan yahay sabarka intaa dhan weeye midda aanu doonayno labada qof inay isu sabraan sabarku marka qiimo badan buu leeyahay sacaado iyo liibaan ma doonaysaan lamaanaha muslimiinta ahow asila labada qoys ee idinka dhexeeya xidhiidhiya waxaad fiirisaa wiilkii ama zawjkii oo ku dhahaya gabadha yaa aabbaan wacay waa aabbaheed hooyaan wacay waa hooyadeed lacag baan u diray hooyadaa iyo aabbaha kadibna hooyadii iyo aabbihii intay soo wacaan gabadha ay ku dhahaan hebel baa maantana soo wacayo lacagtaa noo sodo waad mahadsan tihiin intee in leg bay gabadhaa farxaysaa intee in leg bay ku soo dhowaynaysaa limaadaa halka ila fiiriya soo ayada ma jeclid gabadhya soo ninka ma jeclid waan ogahay inaad dihi haa waan jeclahay wiilya soo gabadha ma jeclid haa waan ogahay inaad dihi waan jeclahay idan hooyadii kuu dhashay wiilkan aad jeceshahay
iyo hooyadii kuu dhashay iyo aabbihii kuu dhalay gabadhan aad jeceshahay in la jeclaado maaha haa in la jeclaado weeye sodohda iyo sodonka sodonka iyo sodohda in la jeclaado waayo haddaan gabadhaydan xaaskan jeclahay hadda ayaga ilaahay adduunyada sabab iiga dhigay tabaaraka wa tacaala idan ma doonaysaa sacaado ma doonaysaan liibaan mid walba midka kale ha xidhiidhiyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa qodobka sagaalaad kaasi kii sideedaad ba qodobka sagaalaad asidq run ku wada dhaqma daacad ma taqaanaan haddaad doonaysaan lamaano raaxa badan inaad noqotaan oo isku raaxaysataan daacad isu noqda khayaanadu ilaahay ma ogolo nabi moxamed ma ogolo sala allahu alay wasalam reeraheenna waxyaabaha inta badan burburiya waxaa ka mid a khayaanada sidqi ku dhaqma oo run ku dhaqma oo daacad ku dhaqma yacni gabadhan daacad kula dhaqan hadal daacada iyo ficil daacad ah iyo dhaqan daacad ah iyo naxariis daacad ah iyo xubbi daacad ay kaa tahay iyo mawaddo kula dhaqan war gabarh yahay ninkaaga kula dhaqan run iyo daacadnimo haddii qodobkaa laga tago reero badan ayaa burburaa qodobka kale alixtiraamu almutabaadal alla qodobkan qiimo badana alla qodobkan macaan badana alla qodobkan weynaa qof ka fahma yacni waa maxay alixtiraam labada qof midba mid kale waa inuu ixtiraamo waa inuu naftiisa ka dooro waa inuu walaalkiisa u dooro inama almu'minuuna ikhwa alla saasuu leeyahy tabaaraka wa tacaala mu'miniintu ayagaa walaalo ah marka dadka walaalahaasoo aduu ma soo gelaysid dadka intooda badan ilaa man raxima rabu lcibaad walaalnimada la sheegayaba ayaga tirada oguma jirto markay meelaha wax laga wacdinayo xataa wadaadada in badan oo ka mid a markay meelaha wax ka wacdinayaan masaajidada inama almu'minuuna ikhwa islaantiisu kuma jirta day nacam islaantaadaa ku jirta fa aslixuu bayna akhawaykum islaantaadaa ku jirta almu'minu almuslimu akhu lmuslim islaantaadaa ku jirta laa yadlimuhu islaantaadaa ku jirta ninkaagaa ku jira idan labada isqabta xuquuqdii walaalnimaday isku leeyihin oo xuquuqdii islaamnimaday isku leeyihiin soo saas ma aha bala alixtiraam xagga hadalka xagga carabka xagga ficilka xagga dhaqanka xagga qalbiga xagga gogosha xagga isu dooridda alixtiraam ya laba qof or is-ixtiraamaynin oo gabadha garan weyda ninkan qiimuhu ugu fadhiyo ninka aan garanaynin gabadhan qiimahay ugu fadhido haddee ixtiraam dhexdooda ma yaalo ixtiraam waa qodob muhiima wey alixtiraam wataqdiir bimacnaa ninku waa inuu u arko xaaskiisa hadiyad iyo hibe ilaahay uu siiyey inay tahay khayr allah ilaahay baan ku shukrinayaa ilaahayga ii kaa dooray ya salaam ka waran hadduu ninku xaaskiisa saas ku dhaho ilaahay baan ku shukrinayaa ilaahayga adiga ii kaa dooray ee dumar iiga kaa dooray maxaa yeelay ilaahay waa ijecel yahay ilaahay inuu ijecel yahay waxaan ku garanayaa aduuba zawjo iga kaa dhigay ka waran gabadhii ninkii hadduu arko xaaska oo tukanayso maa sha allah oo maxaad tukanaysay saacaddan oo kale maba la tukade oo marka ay dhahdo waxaan u tukayay ma garanaysaa haa ilaahay baan u mahad celinayay ya salaam marka uu yidhaahdo oo maxaa nugu soo biray oo nicmo ah oo ay dhahdo markaa ma taqaanaa xabiibi waxaan soo xusuustay qiimahaad iigu fadhido iyo sharaftaad iigu fadhido iyo meesha aad i gaarsiisay yaa markaan eego maba qaadi karo waa shay culus maba qadarin karo saa daraaddeed intaan soo weysaystay yaan ilaahay mahad u celiyey alayh salaam ninkaasi wuxuu hayo o dhan buu ku siin dahab cusub buu kuu soo gadi dhabanaduu kaa dhunkani wuxuu kaa dhigayaa marwo midda ugu sarraysa nacam alixtiraam almutabaadal waltaqdiir nacam labadaa waa inay meesha itaallo qodobka tobnaad fahmu lmas-uuliya labada qof waa inay mas-uuliyadda dhexdooda taallaa waa inay fahmaan allah maxaa ka weyn ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa meeqa aayadood buu mas-uuliyadda ragga iyo dumarkaba ku sheegay rasuulu lhudaa calayhi asalaatu wassalaam meeqa axaadiid buu noogu sharxay nabigu sala allahu alayhi waaalih wasalam ninku xaqee buu leeyahy gabadhu xuquuq bay leedahay ninkuna xaq xuquuq buu leeyahay taayib xuquuqdaa waa in la fahmo
xuquuqda waa inay qalbiga gasho oo in la fahmo maxaa ka macno ah waxaa ka macno ah gabadhu xaqa lagu leeyahay inay bixiso xaqay leedahayna inay dalbato ninku xaqa lagu leeyahay inuu bixiyo xaqa uu xaaska ku leeyahay inuu dalbado taas waa qodob muhiima weey ninka waxaa lagu leeyahay xuquuq aad u weyn waxaa lagu leeyahay marashadii wixii la xidhan lahaa meeshii la degi lahaa maskankii waxaa lagu leeyahay nafaqadii wixii la cuni lahaa oo dhan daawadii waxbarashadii dee waad ogtihiin alrijaalu qawaamuun ninka mas-uuliyad baa saaran ballan adag buu galay qur-aanku ilahay ku sheegay tabaraka wa taala gabadha waxaa laga rabaa itaacadii iyo ninka inay ateecdo oy cuntadii iyo gurigii soo waajibaadka o dhan sariirtii waa mawduuc dheer waaye oo aan daqaa'iqa lagu soo koobi karin walidaalika qodobada waxaan u doortay inaan qodob qodob u tilmaamo si aan faa'iido badan u gaadho daqaa'iqan soo socda oona wax badanna oga tegin laakiin qofka caaqilka isagu inuu ziyaadsado oo kororsadaan rabaa maxaan rabaa inaan dhaho fahmu lmas-uuliya labada qof waa inay mas-uuliyadda mid walba mid kale ka saaran waa inuu fahmaa ina dareenku waa muhiime dareenku waa muhiim haddaad orado adu waxaaga soo qaado orod noo soo gad cunto dhex hore nooga soo gad haye biitsa hore nooga soo qabo haye maqaaxida wax nooga soo qabo si gabdho badan maanta ay sameeyaan ayagoo mas-uuliyaddii cuntadaba ka cararaya haddee waad aragteen reero badan baa ku dumay ilaa man raxima rabu lcibaad tabaaraka wa tacaala qodobka 11 waa qodob muhiima fahmu nafsiyaad baa la yidhaahdaa labada qof ee lamaanaha ah raaxa doonaya inay raaxo ku noolaadaan waa inay mid walba midka kale uu barto waxa uu yahay horta kaale aan isbaranne warqad u dhiib waxaad dhahdaa bal waxaad ku soo qortaa waxaad jeceshahay su-aal baan rabaa malaayiinta dhegaysan doonta kelimadan ama dhegaysanaysa su-aal baan rabaa inaan weydiiyo lamaanaha ayaan rabaa inaan su-aal weydiiyo su-aasha inaan iska weydiiyo ma aha iska weydiinhaye jawaab baan rabaa inaan u helo jawaabtaana waa arrin ku xidhan liibaanta iyo sacaadada raaxada daakhiliga ah iyo midka banaanka u soo bixi doona mustaqbalka weli ma isweydiiseen war maxaad jeceshahay oo maxaad neceb tahay oo maxaa ku dhiba oo maxaad ku faraxdaa oo maxaad ka cadhootaa oo maxaad ku degtaa ii soo qor in alla inta qodob ee aad jeceshahay si aan kuu siiyo inta qodob eed neceb tahay si aan kaaga ilaaliyo bal u fiirsada hal tusaale idinka siinaysa u fahamtaan labada qof markay intaa isku waafaqaan hadduu ninku u yidhaahdo anigu waxaa iyo waxaasa iga xanaajiya goortaan se xanaaqo waxaan jeclay intaan baxo inaan ragga la soo sheekaysto masaajidada iyo meelaha la iskugu imaadayo maqaaxiyaha intaan asxaabtayda la soo sheekaysto hadhowto waxaad arki doontaa anigoo hadiyo kuu wada yaa shukulaato anigoo kuu wada ubax anigoo kuu wada oo faraxsan baan kuu imaanayaa daawadeydii waa intaa haddaan saa laysku ogaanin ninkii markuu baxo gabadhi waxay leedahay ha anaad iga tegaysaa soomo albaabka istaagaysaa kulleetay ku dhegaysaa imaqashii waan ku furay maya iigu dar waan kugu daray 3 maya 9 iga dhig way dhacday ha khatar sooma laakiin ka war hadday dayn lahayd ma dhici lahaa dhibka waa maya gabadhi baa waxay tiraan haddaan cadhoodo waan isduuduubaa qolka jiifkaan galaa bustaan isku dadaa laylama hadlo haye ninka saasaa la doonaya ka war hadduu dhaho maxaa isla duuduubaysaa istaag lama rabo waa in la dejiyo jawiga idan fahmu nafsiyaad waa midda naga maqan 30 sanaa la isqabaa lamana garanayo waxa laga cadhoodo xisaabtii sanadkii koobaad baa xataa aan taalla waagaan jabadaa deganayn waagaan gurigaa deganaa xaafadda howlwadaag waagaan deganayn madiine waagaan deganayn xamarjaja waagaan deganayn boosaaso waagaan u guurnay halkaasaa la leeyahay haddee faraweyna 30 sano ka hor bay ahayde dikruuljafa bacda safa jafa wax la soo dhaafay oo laga soo heshiiyey qofka soo celiya asagaa cudurka iyo daandaansiga wada iyo boogta inuu danqiyo waa in waxaa la xidho baabkaas fahmu nafsiyaad runtii waa qodob in lagu istaaga aad iyo aad u mudan wey saa daraad baa waxaa la yidhahdaa 3 marxalo un baa la maraa qoyska wanaagsan 1 atacaaruf hortaan isbaranno waxaad dhibsanaysa ii sheeg si aan kaaga ilaaliyo qodobka labaadna ata'aaluf waa la isku soo dhawaadaa waa la isku soo dhawaadaa waa la isku soo durkaa ya waa la isku soo dhawaadaa qodobka saddexaana atakaatuf garbahaba la isqabsadaa saddexa ma kaa habaabi saddexda ma kaa dhumi التعارف أسبرنه برشة ونكسر
kadibna alta'aaluf waltaqaarub waa la isku soo dhowaanayaa maxaa hadhay altakaatuf marka dambe in garbaha la isqabsado labada qof ay isqabsadaan waxaan arkaa waqtigu aad igu socda waxaan rabaa inaan isku soo aruuriyo qodobo badan aan ka taga biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a qoyska wanaagsan goorta ay wada hadlayaan inay isdhegaystaan qodobka waa muhiim qoysas badan bay ka maqan tahay qoysas badan baa burka iyo qaylada iska soo qaata laa bar horta ha la isdhegaysto alinsaat alsamcu walinsaat horta in la isdhegaysto waa qodob muhiima soo garamaysaan xadiidkii dheeraa umu zarc ee fii saxiix bukhaari caaisha inay nabiga oga sheekaysay 11 dumara zawji cayaaya wuu dhegeysanaya nabig sal slam zawji almasu masu arnab wuu dhegaysanayaa idaa akala lafa wuu dhegaysanayaa zawji maalig wamaa maalig wuu dhegaysanayaa qiso dheer 11 dumar ah oo waktigii jaahiliyii sheekaysanaya ayay caaisha usoo bilowday rasuululhudaa sala allahu alay wasalam markaasuu aad u dhegaysan markuu dhegaystay ba wuxuu yidhi anigu sida uu abu zarcin umu zarcin u ahaa baan ku ahay de waa qisada waktigeeda u baahane haddii waktina la siiyo biidni illahi tabaaraka watacaala in ummadda loo sharxo arrin mudan weeye laakiin kuma furayo ayuu markaa ku yidhi marka in la is dhegayso qodobka kale almadxu labada qof inay is ammaanaan allahu akbar ninkaaga oo qurux badan markaa arta inaad dhahdo horta adiga ya iyo dayaxa kiinee qurux badan gabadha uu ku yidhaahdo horta adiga iyo dayaxa yaa qurux badan marka qaarkood shaki waxaa iga galaa kiina quruxdu badan maxaa kaa qosol qurux badan oo maxaa kaa ilka cadcad oo maxaa kaa qurux badan oo maxaa kaa tima wanaagsan oo maxaa kaa labis wanaagsan ya allah ninku markuu xaalkiisa ku dhaho ballan baan kuu qaadaya inay hal sano kugu shaqayso kelimadaas ayada ahaa tiri kashtu inay ka dhammaato dumarku ammaanta way jecel yihiin ammaanta runta way jecel yihiin ragguna way jecel yihiin ammaanta laakiin anagu dadka banaanka joogaan ammaanaa haweenka deriska abaa la ammaanaa ragga deriska abaa la ammaanaa laakiin labada isqabta isuma quudhaan shukran iyo ammaan isuma quudhaan haddee ma waktigaan ka gaadhaa waktigu waa dheer yahay mid walba adilo aad u dheer ayay leedahay satrulcawra يعني كتمان السر ما أجدا كتمان السر لبضو قف سعادة دونيا وإني سرت قريان يا الله ما أنت قريهن محا بربرية ما أنت قريهن محافسات كردي اسكفيري وإنا سرت قريسة يا أمة الله أدونت إلهي إلهي درتي بانكوش على سما أدونك إلهي درتي بانكوش على وحن دوننا خير ونكسن أو نظيفة إن النور اسمان ومدى الصوماليات إيه سياسيا إيه اقتصاديا إيه ثقافيا إيه عسكريا إيه أنت وأبربرتي وحن دوننا إني بلشدة إيه كسر لسنتا أيانو دوننا أو خير ونكسن أو إلهي يقانا إني كسر بحان صادر هذا سرت قرية قري أو سرت سريرت قري أو بقى عاشرية دكتة وحكوش شيء جاي دقيسو ما مغلسة دكتة وحكوش شيء جاي مركا أذية نينكا وحنا نحمران كعمل شرهاس بالله دقاية صار واحد الله يهدم أرجع يزيد أمس كدبنا نينكا وضح الله كاريله لكن مركا لو الله ما قرنيسا يا ومركا عروت الصيحلان هي ميسكا وين لصادق قدار تفاح يا موس يا لين يا أبح يا بيعت ها أدوكنا هوبت أن شيء يسكا صادق نينكونا سيدو كله مركا ويا مركا لدونا يا محي إن وحي سر أهوصل اسكو شيء لكن أبناكو بحصدا هالو ما مقا شيء نينكي سيدو يري نكيما قرن ساسي يقو يري كدبنا ميد نولاشا كوفا شلانتي ayaa waxay leedahay ana daawadiisa ku aqaan saasa la dhaha oo saasa la dhaha oo saasa la dhaha bug fantashiru fil ard soma idan wa in la asturo maxaa la yiraahdaa sirta guriga waa in la qariya qodobkan ila dhageysta tajdiidul haya allahu akbar allah qodobkan fiicana oo macaana oo wanaagsana allah qodobkan yaa waqti fiican si waa maxay war nolosha bedela nolosha waxay u baahan tahay hadba in la bedelo daaha waa la bedela waad aragteen fadhiga waa la bedela israafka ma ogoli waxaan ka hadlayaa israaf iyo xadgudub ma laakiin sida daaha loo bedelo dahabka loo bedelo duruucda loo bedelo fadhiga loo bedelo waa in hadalka loo bedelo oo labiska loo bedelo oo muusoodka iyo quruxda loo bedelo oo gogosha loo bedelo ya allah gogosha waa in loo bedelo hadba nooc cusub وإن جوشة وإن مر بنانك لجسوا عنتيا وإن مر عنتدا لا إسلا كريا وإن مر لأرتما سيد النبي عايشة سمين شرين صلى الله عليه وسلم وإن مر سفر لوذا آذا
ya allah waa in hawe la soo wada qaataa waxyaalaha soomaalida ay ku rafaadsan waxaa ka mid a nolol hal meel taagan bariis baasto siduu mid nin sheekho soomaaliya yidhi markay dumarku gogosha ka calaacaleen oy dhaheen ragga soomaaliyeed gogosha kuma fiicno ayaa nin baa u jawaabo wuxuu yidhi oo maxay gogosha ugu fiicnaan karaan raggu rag aad bariis iyo baasto suugo badan aad maalin walba siinaysaan calool weyn iyo lugo dhuudhuuban minjo dhuudhuuban soo labadaa ma soo bax soomaalida hore waxay u tidhi nin walba intuu cunuu ciidamiyaa soo maaha war dumarow raggiinna nafaqaysta raggiinna cunto wanaagsan siiya oo qudaar siiya oo kalluun siiya oo geedaha mataqaanaa nafaqada iyo hormuunka ziyaadada ka dhigaya siiya oo mooraalka u dhisa oo isu qurxiya markaad arooska aadaysaanba duruuc cajiib oo dubay laga keenay baa laisku qurxiyaayo intaasoo lacaga lagu soo gaday isqurxiya raggana sidoo kale ayaa laga doonayaaye war maalin kasta uun ha soo taagnaanine xaaskaaga hawada raaci oo hawada u raac oo safar la gal oo bannaan ka soo cunteeya mararka qaarkood oo isla sheekaysta oo mararka qaarkood meelaha fiifiican ee badda isla aada ya oo jawiga bedela jawiga in la bedelaa waxaa la yidhaha tajdiid alxayaati azawjiya yacni rotiiniga haddaad maanta dhanun hal nooc haddaad barato noloshu ma soconayso qodob kale alqudwa qoyska wanaagsan waa qoys lagu daydo farta lagu fiiqo qoyska xagga cibaadada xagga taacada ismaqalka kala dambaynta akhlaaqda deganaanshaha maxaa la yidhaha dacwada iyo diinta deeqsinimada waxtarka dadka fartaa laydinku fiiqaya in laydinka cuudubilaysta maaha oo dariska le war kuwan yaana soo dejiyey darisnimadiina waa in lagu farxaa waa qodob muhiima oo jiddan asagana sidoo kale waxaa jira wax la yidhaha shucuuru daakhiliy qoyska wanaagsan gudaha waxa ku jira iyo dareenka hoos ku jira waa in moolka iyo biyaha iyo badda iyo webiga iyo ceelka biyaha hoostooda waa inay iska arki karaan labada qof weligaa ma dabaalatay dadka dabaasha aadka u yaqaana ma aragteen sida kalluunka u dabaashaan iyo xaaska moogtiin intay badda galaan biyaha galaan ayaa indhaha biyaha lagu kala qaadaa qofka kalaad arkaysaa iyo xaaskaad arkaysaa kalluunkaad arkaysaa laakiin waa ninka dabaasha yaqaana labada isqabtee lamaanaha ah waa inay noqdaan laba qof oo dabaasha si fiican u yaqaan oo biyaha hoostooda iska arkaya maxaan u jeedaa quluubta ilaahay baa taalacan kara laakiin waa inaad xaaskaagu waxay jeceshahay iyo waxa ay qalbigeeda ku jiri kara waa inaad sawiran karto kadibna intaad maalinka dambe suuqa isu raacdaan aad aragto ayadoo wax wanaagsan fiirinaysa adu laakiin ishaad kala socotaa ya maalin dambe intaa usoo doomarto ayaad u keenaysaa markaasi waxay ku leedahay ay oo niyo yaa kuu sheegay shayga sidaan u rabay haddaad ogta dumarkuna raggu haddii aad uma yaqaanaan intooda badane arrimahaasoo kale qodob kale waxaan leeyahay waktiga ay caydhsanaya alhadaaya labaanuhu waa kuwa wax isu hadiyeeya ya waa kuwa wax isu hadiyeeya hadiyadu qasab ma aha inay qiimo badan inay leedahay lacag badan iyo $100 in laga soo bixiyo ma aha iga rumaysta tajrubeeya xabad xanjo ah oo afka carfisa xabad maxaa la yidhaahdaa shukur ood ogtahay xaaskaagu inay jeceshahay wax yaroo ubax ah ya wax yaroo maxaa la yidhahdaa qiimo badan shay guriga is leedahay ayadu u wanaagsan yahay silsilad yar oon xataa dahab ahayn maalinta aad u keento xaaskaagu siday u farxayso bal nin walba bal ila tijaabiya arrintaa ya qalin i bug maysataa bal intaa qodobkaa qorato bal arrintaas samee waxaad arki doontaa xayaato raaxo noolal isu soo dhowaansho waxaadan weligaa xaaskaaga ama gabadhu ninkeeda ku arkin walidaalika baa nabi sal slam xadiis sanadkiisa maxaa la yidhahda insha allahu xasana tahaadow taxaabu culamada qaar ba xadidka wax ka sheega sanadkiisa tahaadow taxaabu nabigana ficilkiisana saasuu ahaa sala allahu alayh waalihi wasalam xataa nabigu khadiijo saaxiibadeed ayuu u hadiyen jiray nabiga calayhi asalaatu wassalaam qodobka kale athiq ya allah kalsooni labada qof waa inay isku kalsoonaadaan ragga qaar baa masayr badanoo halkan yaa soo maray dumarka qaar baa masayrkoodu meel jira aad u adag ayay yaad la socotay ay barfuunkaasoo carfay muxuu yahay waa labada qof inay is aaminaan waa labada qof waa inay isku kalsoonaadaan labada qof waa inay mid walba midka kale noloshiisa u siiyo laba jidh laakiin hal ruuxa waa inay yeeshaan kalsoonidu waa muhiim kalsoonidu waa raaxo
kalsoonidu waa deganaan, kalsoonidu waa itmi'inaan, kalsoonidu waa xasilooni, kalsoonidu waa xayaato. labada qof waa inay isku kalsoonaadaan. athiqa ayaa leeyahay. alqanaaca qodobka kale, allahu akbar, alla qodobkan weyna oo qiimo badana waa inaad isku qanacdaan. ninkaaga waa inaad ku qanacdo horta siduu alla u abuuray iyo wuxuu alle kugu soo dhiibay iyo siduu kuu maamulo waa inaad ku qanacsan tahay. gabadhu ninku waa inuu xaaskiisa ku qanacsan yahay. alqanaaca adduunyadu waa laga tegayaa, qiimo male, laguma qanco adduunyada xoolo. la qurux wax ma qanciso. wax qanciya waa iimaan iyo shakhsiyadda, jiritaanka qofka iyo dareenka, nuxurka qofka ayaa lagu qancaa. walidaalika baa saciid ibnu caamir aljumaxi radia allahu tacala canhu ardaah asagoo ximis meesha la yidhaahdo madax ka ah ayaa cumar bin khataab baa wuxuu yidhi bal ha la ii soo raadiyo maxaa la yidhaahdaa fuqarada muslimiinta. cumar bin khataab baa markaa fuqaradii baa lagu soo daray. cumar bin khataab baa marka lacag u soo diray. inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun. islaantii baa soo bodo waxay tidhi ma madaxweynihii muslimiintaa la dilay? wax ka weyn. ma muslimiintii baa dagaal lagu jebiyey? wax ka weyn. wax ka weyn ma garanayo. adduunyaa soo gashay gurigayga si ay aakhiradaydana u fasahaadiso, aakhiradeenna aniyo adigana noo kala kaxayso. naga saar bay tiri. qanaaca baa la yidhahdaa. ashuura, labada qof inay wada tashadaan. inay wada tashadaan. nabiga siiradiisa akhriya sala allah alay wasalam, xudaybiya yaa badbaadiyey saxaabada cadaab iyo ciqaab ku soo degi lahaa. umu salama zawjada nabiga sala allahu alayhi wasalam. umu salamaay saxaabadii amarkii bay qaadan la'yihin. war timaha xiirta, xoolahana qowraca. adigu bilow yaa rasuula allah, yaa adigu bilow ayay ku tiri. waxaan ku khatimayaa biidni illaah oo wax lagu khatimaba ah fii suurati aruum aayadda 21 waxaan aayadda u sheegaya raqamkeeda waa aayaddu weynankay leedahay. qaala tabaaraka wa tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu doonayaa inay labaanuhu isjeclaadaan, isuna naxariistaan. waxaan ku soo aruurinayaa jacaylkiinu waa inuu noqdo sidii geed yar oo la tallaalay kadibna la waraabiyey oo jacaylka iyo intaan soo sheegayna oo dhan lagu waraabiyey. marka dambena xididadiisu ay dhulka galeen. haye dhulka markay galeen geedkiina uu kor u baxay. markuu u baxay laamo waaweyn uu bixiyey. laamihii waaweynaana ay midho bixiyeen. allahu akbar. midhaha markay bixiyeen maxaa dhacay? midhihii dadkii baa cunaya, xoolihii baa cunaya. wuxuu noqonayaa geed la harsanayo oo lagu raaxaysto. indhihii buu u roon yahay. haye geedku indhihii buu u roon yahay. haye oo cuntadii baa laga cunayaa. nacam, geedkaasoo kale inaad noqotaan oo beer iyo biyo intaba uu dhex yaallo reerka wanaagsan. saas ayaa la doonayaa inay u dhaqmaan. fa as'alu allah, ilaahay waxaan weydiisanayaa qoysaskeenna inuu qoys wanaagsan uu ka dhigo. isku daya inaad arrimaha dhaqan gelisaan. ballan waxaa igu ah insha allah inaad usra saciida aad noqotaan. intaan kaga kulmayna xalaqadatan ku xigta waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.